إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا هادي له ومن يضلله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوعاً أن كهل دونه وسوكو بياه شيخ حسين بان ملها وقتك كحيق دونه وحان أركيا إن رجنا مهم وياهي لكن وكرامة إيا شرفت إلهي دينتي سوء قبلها مسلم كاسيسي أما الدمر كاسيسي waxaan rabaa raggu inay ogaadaan karaamadaas iyo sharaftaas qaybta ugu weyn dadka la rabo inay ka helaan gabdhuhu inay yihiin shaqaa'iqooda oo ah ragga intaana muxaadarada gelin Soomaalidu waxay tiraahdaa tifdheer lama tashado dumar talama galaan bay Soomaalidu tiraahdaa waxa wax ma ka jiraan ma maqasheen nabigu waa la tashaday calayhi salaatu wassalaam waxaa ku soo arooray saxiixa nabigu markuu 360 gaaray ayuu hilbooday hilib buu yeeshay wuxuu ku khudbayn jiray jimcada geedka timirta oo la gooyay ayuu ku istaagi jiray ulna waa cuskan jiray nabigu calayhi salaatu wassalaam gabar ansaariyad ah ayaa waxay aragtay nabigii oo ku dhibaataysan in uu ka khudbeeyo geed timira dushiisa nabigay u timid calayhi salaatu wassalaam waxay tiri yaa rasuul allah inna lii ibnan najaaran waxaa ii jooga wiil najaar oo looxa qora afalaa amuruhu an yacmala laka mimbaran yaxmilu cidaamak wiilkaa ma u sheegaa inuu sameeyo mimbar lafahaaga xambaara oo dhibaatadan aad ku jirtid kaa saara nabigu waa dhoolla caddeeyey calayhi salaatu wassalaam gabadhii ansaariyadda xadiidkii saxiix bukhaari buu ku jira mimbarkii bay samaysay oo 3 jaranjaro ka kooban su-aashu waxaa weeye ikhwaani wa akhawaati fillah intee mimbar baa maanta adduunka ku taalla intee masjid baa adduunka ku taalla intee mimbar baa masaajidada ku jirta waa talo ka timid gabar muslim ah oo nabi maxamed taladeedii qaatay calayhi salaatu wassalaam sharafta intaa la eg ayaa islaamku siiyey gabdhaha islaamka sharafta intaa la eg ayaa islaamku siiyey gabar muslimada ilaa maanta ajarka laga helaya mimbarkaas gabadha ansaariyada way helaysaa laana waxaa jira acmaal kuugu imaanaysa qabriga acmaasha waxaa ka mid ah wixii aad islaamka u tartay khayru nnaasi anfa'uhum linnaas bi nabi alayhi salatu wassalaam inna mimma yalhaqu almu'mina min 'amalihi ba'da mawtihi ilman nashara aw waladan salihan taraka أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن سبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها في صحته وحياته تلحقه بعد موته وحاد سمينيسد والدنيا أدوغت جيسد قبرك يكوغو إيمانيسا قبضنا أنصارية قبرك يذيب إلهي سبحانه وتعالى إلى قيام الساعة أجرك منابرته أصعده gabar baa masjidka nabiga xaaqi jirtay gabadhaas gaalad bay ahayd xaafad carabtay ku nooleed gaalnimadii bay u adkaysan waayeen waxay ku tuhmeen inay silsilad xaday way ka soo guurtay masaajidka nabiga agtiisa ay soo degtay calayhi salaatu wassalaam mixjan baa la dhihi jiray waxay nabiga ka codsatay inuu u ogolaado masjidkiisa inay xaaqdo oo nadiifiso habeen kasta cishaha marka la tukado ayay masjidka xaaqi jirtay nabiga calayhi salaatu wassalaam waa shaqo aan u haysano inay tahay shaqo aan qiimo lahayn oo macno lahayn oo qiimo lahayn oo waxtar lahayn yacni masjid la xaaqo iyo agteenna wax qiimaa kama leh dadka masaajidadeenna xaaqa waxaan u eegnaa hoos baan u eegnaa dad qiimo agteenna kale ma aha nabiga calayhi salaatu wassalaam habeenada ka mid ah ayuu gabadhii waayey wuxuu yidhi gabadhii masaajidkoo nadiif ahayn buu arkay wuxuu yidhi gabadhii masjidkaan xaaqi jirtay aaway waxay yidhahdeen waa dhimatay xalay way dhimatay waana aasnay way yaraysteen maadaama qof madow ay ahayd
maadaama ay dhulka xaaqitaan shaqadeedu xaaqid ahayd nadiifin ahayd way yaraysteen marka waxay yidhaahdeen way dhimatay maanaan kuu soo sheegin maanaan rabin inaan ku dhibno yaa rasuul allah maanaan rabin inaan ku dhibno nebigu waa carooday calayhi salaatu wasalaam afalaa aadantumunii biwafaatiha wa fii riwaayatin afalaa aadantumunii bimowtiha war maxaad iigu sheegi weydeen gabadha inay dhimatay buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi marka kelmad aad u yaab badan oo tusinaysa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam naxariistiisa cadaaladiisa sinaanta uu simayey muslimiinta inay u sinaayeen wuxuu yidhi dulluunii calaa qabriha gabadhan aad aasteen qabrigeedii igeeya gabarh masaajid xaaqaysay oo madow ah ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam oo nebigii ilaahay islaamka ah wuxuu yidhi qabrigeeda igeey qabrigeedaa la geeyey qabrigeedii markii la geeyey janaazu ku tukaday nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina hadihi alqubuur mamluu'atun wuxuu yidhi qubuurtanayto waxaa ka buuxa mugdiyaal calaa asxaabihaa walacala allaha an yunawira qabraha biducaa'i oo bisalaati calayha waxaa laga yaabaa ilaahay ducadan iyo salaadan inuu qabrigeeda u nuuriyo shuraaxdu waxay leeyihiin gabadhaas salaada uu nebi maxamed ku dul tukaday qabrigeeda ugu tegey oo uu ku tukaday oo uu u duceeyey jannay gashay jannay toos u gashay karaamo ka weyn karaamadaas oo diin intaa ku karaamayn karta dumar sharaftaas siin karta oon diinta islaamka ahayn miyaa jirta nebi maxamed inuu aado oo ku soo tukado oo u duceeyo oo qabrigeedii u nuuriyo waxaa weeye wax maaragtay yacni diinta islaamka keliya laga helo muxaadaradayda waxaan ku soo u qaybinayaa 2 qaybood ama 3 qaybood waana soo koobaya qaybta koowaad waxaa weeye jaahiliyadii namaadij baan idinka siinayaa siday dumarka ula dhaqmi jireen wixii ka horreeyey diinta islaamka kadibna sida islaamka ula dhaqmay kadibna waxa laga doonayo gabdhahan idinkana ay idin noqonayso xuquuqda iyo waxa ay leeyihiin inaad siisaan baan ku soo khulaasaynaya iyadoo mugdi lagu jiro ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi maxamed soo diray nuur baa soo baxay nuurkaas soo baxay dadku u soo baxay waxaa ka mid ahaa dumarka ayaa ka mid ahaa mucaamalo gooni ay lahaayeen waqtigii carabta xuquuqba ma lahayn maba ahaynba bini aadam ilaahay abuurayba uma ictiraafsanayn ilaa nuurkaa islaamku yimid oo cadaalad u sameeyey xuquuqdoodii u soo celiyey cilmi baray cilmiga ay barteen waxay gaareen sida umu waraqa iyo inay imaam ahayd oo dadka tujinaysay waxay gaareen caaisha iyo dad la mida sida alimaam الزركشي uu sheegaya alajwiba fii ma stadrakathu caaishatu cala saxaaba in caaisha ay saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam masaa-isha ka saxaysay diinta islaamku nuurkaas ayaa nebi maxamed ilaahay subxaanahu wa tacaala dumarka uga dhigay oo u soo saaray nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dejiyey usus ayuu u dejiyey lagu karaamaynaya dumarka cadaalad ay ku helayaan ay wax ku baranayaan ilaa ay noqdaan maaragtay mujtamaca islaamka asaaskiisii ay noqdaan waqtigii jaahiliga waa soo khulaasaynaya haweenayda waxba ma dhaxli jirin waqtigii jaahiliga wax dhaxala looma ogolayn ma garanaysaa waxay dhihi jireen na dhaxli mayo qof aan seef qaadanaynin oo maaragtay baydada aan ilaalinaynin haween waxba ma dhaxasho wax dhaxalaho ay leedahay ma leh haweentu ninkeeda wax xaqa kuma lahayn waqtigii jaahiliga wax xuquuqa oo ninkeeda ay ku lahayd ma jiro talaaqu 3 iyo midna ma ahayne ilaa 100 goor baa la furi jiray jaahiliyada waqtigiisii xad ma lahayn talaaqu xad ma lahayn haweenayda waxaa ma arkaysaa ninku intuu rabo guursan jiray waad garanaysaan khaylaan ibn salama nabiga wuxuu yimid calayhi salaatu wasalaam asagoo 10 dumara wata 10 buu watay nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidku saxiixu ku jira ikhtar minhunna 4 buu yidhi 4 kala har وفارق سائرهن 4 kala har inta kalena sii daa buu yidhi 10 dumara buu watay khaylaan ibn salama 4 kala har buu yidhi qaarkood 100 bay haysan jireen qaarkood 50 bay haysan jireen waqtigii islaamka ka hor طبعا waxaa ka mid ahaa xuquuqda waxyaalaha islaamka ninku hadduu dhinto
nin hadduu dhinto wiilka ugu weyn reerkaas hooyadii maahan eedadiis ama aayadiisaa u taqaanaan asagaa guursan jiray asagaa la hari jiray wuxuu dhihi jiray anaa ugu xaq leh aabbahay xaaskiisa anaa ugu xaq leh kitaab alla dantay ma oga ninkaan haweenayda hadda soomaaliyaba way ka jirtaa badanaaba waxaan la yidhaahdo xiskiisinka marar badan waxaa dhici karta in dulmi ku hoos jiro laakiin laakiin tanaan ka hadlaya hadda waa jaahiliyadii wiilka awlaadda u weyn baa wuxuu dhihi jiray anaa uga xaq leh ma garanaysaa qof kale oo aayaday guursanaya ma jiro waqtigii jaahiliyada haweenayda ciddadeedu sanad bay ahayd sanad bay tirsan jirtay sana kaamila xawlan kaamilan bay tirsan jirtay markay ninkeeda u barooranayso waxay xiran jirtay dharka ugu xun waxaa la dejin jiray qolka ugu xun timaha ma shallaysan jirin sanad qubays ma geli jirin sanad kaamila ma qubaysan jirin markay mujtamaca u soo baxda sanad kadib ayadoo urkeeda iyo dharkay qabto laga cawdubilaysanayo ayay soo bixi jirtay gabdhahooda way kirayn jireen zinaday waxay dhihi jireen guri buu dejin jiray walaa tukrihu fatayaatikum cala albigaa way zinaysanaysaa lacagta ay ka zinaysatana waa laga qaadi jiray nebiguna calayhi salaatu wassalaam waad garanaysaan markii diintan wanaagsan ee islaamku timid mahru lbaqiyi khabiithun wa thamanu lxijaamati khabiithun wa thamanu lkalbi khabiithun mahru lbaqiy waa yani haweenaydan la kiraynaayo in haweenay la kireeyo wixii ka soo baxa la cuno yani inay xaaraam tahay iska daayo waa khabiith buu yidhi nebigu calayhi salaatu wassalaam waxaasna waa waxii ay jaahiliyadu ku dhaqmi jireen oo waqtigii jaahiliyada ay samayn jireen waxay lahaayeen guur faasid ah oo maaragtay guurkaa waxaa ka mid ahaa in hal haweena 10 nin u galmooto markay dhashana ay u yeerto 10koodii oo mid ay la jeclaato ilmahay dhasho tiraahdo huwa laka yaa fulaan 10 nin ama 20 nin ay u galmoodaan waxaa ka mid ahaa istimtaaca in ma arkaysaa ninku uu eego reer uu isleeyahay waa geesi ama waa boqortooyo oo xaaskiisa yidhaahda hebel la soo seexo oo hebel ilma iiga dhal markaas si uu geesi u noqdo ama caqli badan u noqdo ama maaragtay muntashir bay ahayd waxaa ka mid a nikaaxulmutca oo hadda shiicadu ku dhaqmaan oo ah bil baan isqabaynaa bil kadibna waa kala tegaynaa oo haweenaydii jucli loo yeelo wax la siiyo waxaa ka mid aha nikaaxu shiqaar waxaasoo dhan islaamku waa xaaraantinimeeyey nikaaxu shiqaar waxaa la yidhaahdaa waxay samayn jireen jaahiliyadu walaashaa isii walaashay baan ku siinayaa gabadhaada isii gabadhaydaan ku siinayaa meherkeennuna waa macnaha luqadda carabiga waa garanaysaane waxaa weeye min baabi shaqara alkalbu idaa rafaca rijlahu cinda albowl eygaa markuu kaadshaya lug kor u qaada marka lugta walaashay kor u qaadi maysid ilaa aan lugta walaashaa kor u qaado sudaaqa ama meherkuna waa labadaa lugoodoo la qaadayo islaamkuna waa xaaraantinimeeyey oo waa waxay ku dhaqmi jireen haweenayda waxaa yani xaaraam loo diidanaa inay noolaato bal waa tii la aasi jiray waida almaw'uudatu su'ilat biayi danbin qutilat ceeb bay ahayd ninku inuu maaragtay gabar u dhalato ceeb bay ahayd ragga ma soo hor fadhiisan jirin bal waxaa laga yaabaa haddii gabar u dhalato inuusan gurigaas weliga gelin baa laga yaabaa waxay tihi haweenaydii maa liabi xamzata laa ya'tiina yadallu fi lbayt aladii yaliina غضبان ألا نلد البنين والله ما ذاك بأيدينا ونحن كالترب لزارعينا ونحن كالترب لزارعينا ننبت ما زرعوه فينا waxay tiri ninkan gurigan kaluu gelayaa oo wiil dhashadu u gelayaa annagana noo soo geli mayo maxaa dhacay aakhirka waxay tiri waxa haddii wax xumaadeen dee aday xumaanta aday kaa timid adaa gabdhaha dhalay bay tiri anigu beer baan ahay bay tiri beer wixii lagu abuuro beer haddaad digir ku abuurtid moos miyaa kaaga soo baxaya beer haddii digir lagu abuuro moos ma ka filaysaa waxay tiri haddee adaa waxaa nugu abuuray anigu wax dembiya ma lihi waqtigii jaahiliyada lama soo koobi karo dulmiga lagu hayay gabadha qofka dumarka dulmiga lagu hayay lama soo koobi karo diimahoo dhan
islaamka ayaa yimid islaamku markuu yimid waa soo koobayaaye islaamku wuxuu yidhi waa hooyo waa gabar walaashaa ah waa gabaraad dhashay waa xaas afartaasay u badan yihiin afartaba xuquuq buu u sameeyey hooyo xuquuqdeeda waad og tihiinoo lama soo koobi karo waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wabilwaalidayni ixsaana ima yabluganna cindaka alkibara axaduhuma aw kilaahuma falaa taqul lahumaa ufin walaa tanharhumaa waqul lahumaa qawla kariima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا إلى آخر الآيات آيات كستو حق إلهي لغو شيغو حق والدك لغو شيغا لبدودو ودا جيره ويه لبدودو ودا جيره markaasa xaqa hooyadana si gooniya loo sheegaya xaqa hooyada si gooniya loo sheegayaa mar kasto xaqa labada waalid la sheego hooyada waa la ifraadiyaa oo si gooniya loo sheega oo maxay ku dhacday hooyada uur bay qaaday markay uurka qaaday waxa ku dhacay waxmi wax la yiraahdo oo la yiraahdo waxmigu waa walac way walacday wax kasta u xumaaday cuntadii baa u xumaatay wax kasta oo ay u dhadhamiyeen uma dhadhamayaan hooyada uurkaaga intay 9 bilood bay culays ka waday oo ku rafaadaysay oo waxay cuntaa la cunaysay way foolatay fooshu waa dhibaato iyo xanuun way umushay way dhashay hooyada way dhashay way ku nuujisay way ku nadiifisay aabbaha intaasoo dhan ma ogeyn aabbaha intaasoo dhan ma ogeyn bal waxaa laga yaabaa haddaa ooydid adiga hooyadaaba inuu bannaanka idin dhigo yidhaahdo barri shaqaan leeyahay bannaanka seexdaa dhici karta inuu idinka saaro qolkaa dhici karta ilaahay markaas wuxuu leeyahay adiga marka intaas la marayo caqli maad lahayn waxba maadan garanaynin ilaahay dib buu kuu celinayaayo xamalatu ummuhu wahnan calaa wahnin buu ilaahay leeyaho ilaahay wuxuu ku xasuusinayaa markaa weynaato 6 sano gaartaad waxaad aragtay ninkaan odogaahoo rooti keenaya ninkaan odogaahoo gaari wata ninkaan odogaahoo caana keenaya ninkaan odogaahoo lacag la weydiinayo waxaad istiri qofkan dumarka weligeedba shaqo ma qaban ilaahay abuuriyo gurigaanba wax kuma darsan markaas ilaahay dib kuu celinayaa wuxuu leeyahay waxaa jiray waqti hooyada wax kasta ay ku qabatay laakiin aadan garasho lahayn marka xaqa hooyada lama soo koobi karo waana ka dharagsantihiin innaga mujtamaceena hooyada dambiyada aan ka galay aabaha waxa kamid ah waan masruufaa wax la yiraahdo hooyaday waan masruufaa waxa laga yaabaa 10 saneedaan inaadan arag hooyada waan masruufaa gabadhuna way masruuftaa adiguna waa masruuftaa hooyo ma masruuf bay u baahan tahay hooyo masruuf wax ka weyn bay u baahan tahay hooyo inay ku aragtay u baahan tahay hooyo in saliid madaxa loo mariyay u baahan tahay hooyo in lugaha loo riixay u baahan tahay hooyo in loo meeray u baahan tahay dharkay loo dhaqay u baahan tahay hooyo masruuf ma baahna waxaan aad leedihiin hooyaday lacag baan u diraa bil kasta ma ahan maaragtay waa dhaqan hadda waxaaba la marayaa in la yiraahdo xiriyaha dadka waaweyn sacuudiga iyo hadda way bilaabeen soomaalida dibadda ku nool war maamadan dhibkeedii waa batay aan geyno guryaha dadka waaweyn aan geyno gabar weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay 3 gabdhood oo walaalaha ah ama 3 gabdhood oo dhashay haddaad tarbiyadooda hagaajisid oo aad u istaagtid inaad janno ku galaysid buu nabigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidkuna waa saxiix waa 3 gabdhood gabdhaha keliya dhashay ma ahan waxaa la mida walaalaha baa la mida 3 gabdhood oo walaalaha ah bal culamadu waxay leeyihiin culamaa shariica gabadha walaasha ah haddii ayna masruuf haysan oo ayna nolol haysan xataa haddii la qabo wujuub buu noqonayaa inaad nolol siisid adoo awooda waajib buu noqonayaa walaasha arrintaasaa inaa ogaataan weeye laanna in badan waxaa dhacda in la yidhaahdo gabadhu maarag nabigu xadiid kale wuxuu ku leeyahay man caala jaariyatayni xataa tabluqaa yacni 2 gabdhood qofka 2 walaalaha ama 2 aad dhashay qofka kafaalo qaada maalinta qiyaamaha wuxuu imaanayaa aniga iyo asaga oo saasa buu yidhi annagoo saa u siman baan imaanaynaa buu yidhi nabigu عليه أفضل الصلاة والتسليم
xuquuqda la siiyey gabadha muslimka waxaa ka mid ah ikhtiyaarka zawjkeeda inay ninkay rabto dooran karto gabadha bal nabigu waa radiyey calayhi salaatu wasalaam xadiidka waad garanaysaan alayimu tusta'maru walbikru tusta'danu bal nabigu waa celiyey calayhi salaatu wasalaam baryahan waxaa aad u badan in odagu yidhaahdo aabba nin baan kugu daray nin baan ku siiyey talana ma lihid arrintaas shareecada islaamka way ka soo horjeedaa gabadhu way diidi kartaa xaq bay u leedahay ma arkaysaa inay tidhaahdo aabba ninkaan ma rabo nin fiican igu dar labaduba waa xaq bay u leeyihiin odaguna qaybtiis u leeyahay ayaduna qaybteeday u leedahay bal nabigu waa radiyey calayhi salaatu wasalaam arrin noocaas oo kale ah oo loo keenay nabigu wuxuu yidhi khayrukum khayrukum liahli wa ana khayrukum liahli dadkiinaan ragga oo maxaasaska ah ninka idinku khayr badan idinku fiican waa ninka u naxariista oo u khayr badan xaaskiisa oo u naxariista xaaskiisa oo u sahla wixii magala wacaashiruhunna bilmacruuf suurat lmujaadala waa garanaysaan gabar baas maaragtay fowqa 7 samaawaat ilaahay arrinteeda ka hadlay suurad dhan oo suuratu nisaa la yidhaahdo oo qur-aanka ugu macaan oo axkaam iyo dumarka ayaa ilaahay siiyey dumarka suuratu rijaal qur-aanka miyay ku jirtaa waa maya suuratu nisaa bal gabar gabdhaha ka mid oo maryam la yidhaahdo ayaa suurad lagu magacaabay keligeed oo maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala bal caaisha lagu difaacay bal khadiija nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu jibriil u sheegay in ilaahay uu yidhi khadiijo salaamiga gaarsii guri ay jannada ku leedahay beytun min qasabin laa ma arkaysaa laa sakhaba walaa nasaba guri aan qaylana lahayn daalna lahayn adduunyadan waxaa laga yaabaa adoo qasri degan gawaari inay ku ag marto ciyaalku ku qayliyaan hadda inta seexatid hurdadii ka daashid oo dhinacu ku xanuuno laakiin guri janno khadiija ah radia allahu tacaala canha in maaragtay maxaa la yidhaahdaa saa ilaahay u siiyey dhaxalka waad aragteen mararka qaarkood gabadha nus bay dhexlaysaa ma dhexli jirin jaahiliyadii laakiin islaamku dhaxal buu siiyey dhaxal weliba aad u fiican buu siiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam istawsuu binnisaa'i khayran bal markuu dhimanayay nabigu calayhi salaatu wasalaam oo naftiisu baxaysay الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم نبي وحو كدر دارمي ور صلاتنا أوغا دمرك قعنتينا كجرنا ولا دغمة سوى أكثر ولا دغمة هو يدين ولا شين قبل هذا يحاس كاغا أفرت أسبه وناك ولا دغن نبي عليه الصلاة والسلام أرنت أسوف مارك بل وصايات كيس وحاكمها أحرج عليكم حق الضعيفين وحان يعني أتكدن بمضاني سامبو يري لبضة تبرت الدرن المرأة والعبد هوين إذا وكدن بمضاني سامبو يري النبي عليه الصلاة والسلام حديث كان هو صحيح وي نبي قدر دارن كيس وحاكمها دقال لنا الضمر كاللغول لينين يعرورتا لما سوى كوبي كرو نصوصتا إن ماركيسا لما سوى كوبي كرو maantay gaaladu maxay doonayaan gaaladu waxay doonayaan gabadhan gurigeeda inay ka baxdo gaaladu waxay doonayaan gabadhan inay isqaawiso gaaladu waxay doonayaan inay meelaha marqaska lagu ciyaaro ay tagto waxay doonayaan inay noqoto yani qof tartakibu alfaaxisha yani xalay baa guri loo dhacay meelahan ku yaala maaqayna aragteen kilib baa wareegaya meel shiishada lagu cabo bahashan shiishada meel lagu cabo dumar xijaaban baa cabayay shiishada dumar xijaaban baa cabayay islaamo waaweyn baa cabayay oo qaarkood booliisku waa riixi laayahay mid ka mida yani intay la eg tahay booliiska way riixi laayihiin ilaahay baan idinku dhaariyey akhlaaqda noocaasa ya qof dumaroo weyn oo yani dumar waaweyn oo ciyaal wiilal yaryar dhex fadhiya oo shiishad cabaya waxa gaaladu rabaan waxaas wey waxaad arkaysaa gaaladu waxay rabaan in maaragtay gaaladu waxay rabaan in maaragtay gabadhaanu ay noqoto silca oo lagu raaxaysto adduunka oo dhan waa aragteen maanta haweenayda yurub ani maraykan waan joogay yurub waan joogay waan maray waxbaan ka bartay ingiriiska haweenayda 5 nin bay la saaxiibaysaa 5 nin bay la saaxiibaysaa waxa laynaga rabaa horta inaad fahamtaan baa la rabaa
gabadhan hadday xijaabato waxa la leeyahay waa akhlaaq xumi hadday is ilaaliso waa xumi waa dulmi laakiin hadday isqaawiso faasidada noqoto xadaaro weeye waa ilbaxnimo waa wanaag waa sharaf ma garanaysaa yani waxa laynala rabo waxaas weeye waxaa leeyahay waqtiga kaa dhammaaday waan soo khulaasaynaya gabadhan muslimadda ilaahay waa ku karaameeyey ilaahay waa ku sharfay hooyaa tahay sharaf buu ilaahay ku siiyey gabar baa tahay walaal ah ilaahay waa ku sharfay walaalaad leedahay gabar la dhalay baa tahay ilaahay waa ku sharfay xaas baa tahay waxaan rabaa gabdhahan inaan u sheego cilooyinka ina haysta mujtamaceenna waxaa ka mid ah socodka badan wareegga badan dumarka soomaalidu inaad guri joogtaan waa laydinku kari waayo lugahaydan cuncunahaya waxay leedahay nakeen soo wareegne ilaahayna wuxuu leeyahay waqarna fii buyuutikunna war gurigiina jooga maxaa luguhu ku cuncunayaan maad qur'aan akhrisatid maad tukatid maad adkaar samaysid maad maaragtay gurigaaga joog ha u bixin dibadda iyo wareeg ha u bixin lianna hadda fasaadkii waa batay fidnadii way badatay fidnadana dumarku aad bay ugu sahlan tahay inay fidnoobaan taa waa midda labaadoo laydinka rabo waxaa weeye inaad kitaabka ilaahay iyo sunnadiisa sharaf baad yeelateen carruurta idinkaa u istaagay idinkaa tarbiyayseen waa ku mahadsantihiin soomaalidii burburtay oo sheekh maxamed idriis ka hadlayay haddaan idinku jirinin maanta soomaaliya lama arkeen iga qor hadalkaa haddaydan idinku jirinin soomaaliya lama arkeen 30 iyo dhowrkaa sano idinkaa u istaagay ilmaha idinkaa dugsiga geeya idinkaa waxbara idinkaa maaragtay macadka geeya idinkaa maaragtay ilaahay waa idin sharfay sharaftaas ilaaliya mid kale oo laydinka rabo waxaa weeye meeshaan ganacsiga ka socda waxaa la doonayaa ganacsiga waxaan lagu keenayo ood cunaysid hub inay xalaal tahay inay xaaraan tahay waxaan aad cunay kullu jismin nabata bilxaraami fannaaru awlaa bihi buu nabigu calayhi salaatu wasalaam carruurtaad haysatidii adiga horta ma xaaraan baad cuntaa mise xalaal baa cuntaa waxaan ku soo koobayaa cumar ibnu cabdilcasiis waa maqasheen soo maha xaaskiisa magaceeda yaa garanaya cumar ibnu cabdilcasiis gabadhuu qabay magaceeda ma garanaysaan ma garanaysaan waxaa la dhihi jiray faatima binti cabdilmalik ibn marwan ninkaasu 2 sano iyo xoogaa buu hayay waddanka 2 sano iyo xoogaagaas cadaalad barwaaqo diin ilaah u dhowaansho waxaa ka dhacay waxaan la aragoo la maqal bal axaadiistii nebiga ninka ururiyey weeye oo siyuud uu leeyahay wa awalu jaamici alxadiidi waalahar ibnu shihaabin aamiran lahu cumar ibnu cabdilcasiis baa qabay khaliifadii islaamkaa qabay gabadhaasaan rabaa hal kelmad inaa idinka sheego kelmaddaasaan ku xirayaa aabbaheed boqor buu ahaa awowgeed boqor buu ahaa zawjkeedu boqor buu ahaa 4 nin oo la dhashana boqorray ahaayeen waa isku meeqa waa 7 boqor baa la dhashay maalintay dhimatay shilinkama tegin waxay ku dhihi jirtay cumar ibnu cabdilcasiis aakhiro adigu ma lihide guri adduunyaad joogtaaye xaaraan hana siinin adigu xaaraan hana siinin ninkii gebiyey wuxuu yidhi bintulkhaliifati waalkhaliifatu jadduhaa ukhtulkhalaa'ifi waalkhaliifatu zawjuhaa bintulkhaliifati cabdulmalik baa dhalay waalkhaliifatu jadduhaa waa marwaano awowgeeda ukhtulkhalaa'ifi 4 boqor baa la dhashay alwaliid iyo sulaymaan ibni cabdilmalik yaziid ibni cabdilmalik hishaam ibni cabdilmalik 4 walaalaheedoo boqoraa waalkhaliifatu zawjuhaa ninka qabana waa cumar ibni cabdilcasiis oo waa boqor 7 boqor ayadoo maantay kuwii maamul goboleedka uu ka hadlayay sheekh maxamed idriis kii sanad hayaa wuxuu leeyahay 40 milyan baan haystaa isbitaal ma leh oo biyo ma leh oo waddo ma leh oo maarag dadkuna raalli bay ku yihiin bahalaa idinku jira xataa ragga way gashadaan hadda bahalo oo xarigga dumarku isku qurxiyaan ma aragteen xarigga dumarku isku qurxiyaan ragga oo dhan way ugu jirtaa inta badan waa maxay xariggan wuxuu leeyahay maamul goboleedkayga wey hadda dumarka la rabaa inay waxaan xirtaan ragga looma ogolo ogaada ninkii xirtaa waa dumaroobayaa dumarka
marka waxaan maamul goboleedka iyo waxaan la leeyahay lacagtaan ay cunayaan iyo guryahan ay dhisanayaan waxaan gabadhii waatana ayadoo daahiray adduunka ka tagtay waxaa weeye nolol abadi ah ayadee ninkeeda hada wa sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedin wacala alihi wasaxbi ajmaciin